كبطة ويكلفوك وين عيدا تقول في بيت اللي كينيا لو كينيا يتقاعد الدلان لو كينيا كينيا الدفاع عن عيدا كحركة يمنية مقالة عيدا كبطة أنا وحلو كينيا إن عيدا كحركة كدفاع عن وحلو وحي بدينا إيمانيا 800 كيلومتر ويا حركة 800 كيلومتر بروح لكينيا براكيب تقال وهذه بطة عيدا كحركة لقصوا الدفاع حيلين النقطة سعر تسوس الدروح على كل كم دونا ريدارو ده سوى شيء دونا وحلو كل دقائق بعد السماء يا أردن ويشيء وحيل دروك السماء ويشيء يا ربور أردن على كل كم دونا ريدارو ده سيل دروك يحب تلو السماء يا لبض دوا السماء يا دقائق بعد كلمة يكبر كلمة يا لبض با ويلسعني عيدا تعرف أقول يا شمرك أيه بردوريو تصور القام ديارنا اللي فينا يحرقوا ضرب السنة الإمارات كده تسعة كيلو وحيلين صدق بقول يلحدن يزيد ديارهم دي صدق لا بقول يلحدن يزيد كديارهم وعيد كحرك أوكيليا معها عيد معها إبرز كديارها غيرها معها وعيد كحرك أصفر كل أوف وين عيد كل ستاف ديارنا زوجة كوبيه هو ترانسبورتر هو ترينجر ولا لغو ترينجر تاكسود يبغى تقال ديارة اللي كنا لغو تقال كليه بروا لبنا نوع حويا ميراج 2000 ديارة اللي راي فرانسيسكو سمايو هي ديارة اللي راي F-16 أمريكا تسميه ديارة اللي راي ميراج 2 واحد أول كليه إن اللي إحنا نكون أوفيت هيقولوا بكفر ترى بركاتك أيام بينو شيء إلا حديدا يحددين هي بيس كلا كبتني بالبلد. ديارة أزمر كلهم كك على مسافة الإنترنت أي تكتو أي كسر نقول يصير بوركيدي بحتى أي كسر وريك إذا كما يرانا يتبعت كيلومتر أو هكذا بشيء يكوري كذا. ديارة F-16 كنا وعلمي waxaan warkayni sheegaya diyaarad kasta oo kacda oo dhulka ka kacda markii kacayso waxay ku kacdaa wax la yiraahdo flat plan iskama kacayo ninka pilot-ka diyaaradda wada wuxuu ku kacayaa oo farta laga saaraya marka garoonka ka kacdo haddii tusoo noqon kari weydo garoonka loo digi kari weydo meelaha deg baa leeyahay marka base-ka berbere laga bixiyo kuma koobna berbere ee hargeysadana ay joogeen nafteeda cilmiyan ayaa ku jirta وهي تدرك رواية بربرة وأفر كل يبقول أفر مترا وهي لبضي يا رب الله سدح أما أفر أمر وذاك عاد يا رب الله تجاوب هذا يسمعه بروكي كسر نقوم بتطاير بركاكي لبضي تجامل شيء هذا كي وهي رموي بربرة ومتكلية هرجستو إمام كراية ستكون يشبه الله مترا ولدي كرا environment ka dhulka diyaaradahan waa diyaaradaha qaada hubka la yiraahdo chemical waa loogu talagalay in kamiligiiska meel kasta in lagaga dagaalamayo hubka hadduu xabad intuu qaado ay xeerihiina ku dhacdo waxa kalluun dadda ku jira uu sumaysmaya hadduu beriga ku dhacana dad xoolo dhaqataa weernahay oo dhulkaasoo dhan xoolaha jooga way dhimanayaan daduna marka dhibaatooyinka intaa leeg ay leeyihiin ciidamada cirka ee imanaya berbera talabaad waxa weeyaan haweeneyna inaga dusheena diyaarado fara badan baa ina dulmar ma aqaan sida dowladda imika maanta Soomaaliya ka talisaa way xisaabtanto laakiin hargeysa waxaa la yiraahdaa marka la duulayo compulsory checkpoint baa la yiraahdaa diyaarad kasta oo dulmaraysa magaalada berbera waa in tower magaalada hargeysa waa in towerka hargeysa isku sheegtaa toban minute horta intaan xafka Soomaaliya soogi ma aqaan in cilmiyan lacagta malaayiin dollar ee laga qaado diyaaradaha dhulkan dul maray ee dowladda ay sheegeen kale kama warhayaan laakiin waa mid loo baahan yahay inta la cilmiyeeyo oo international civil aviation organization kala hadlo waxaynu xaq u leenahay inaynu xaq u leenahay waxa kale doonayaan in shaqo hadalkeeda ku soo gabagabeeyo waxaan barbar dhigi kari lahaa base-ka laga samaynayo magaalada berbera Eritrea laga sameeyo magaalada casab la yiraahdo waxay ku leeyihiin base waan joogi jiray anigu casab waan ka digi waan ka duuli jiray
dhererkiisu waa 3,500 mitir weyn halkaa waxaa geeyeen diyaarado Eritrea way xisaabtantay waxay yidhahdeen ma u baahanahay mise uma baahnayn casab waxay ogaadeen inaanay casab u baahnayn laakiin waxay ku xidheen waxaan caqligaa gablooy keeni karin ciidanka Eritrea 70,000 kor u dhaafay waxaa loo kharash ku baxa waxaa bixisa Emirates waxaa loo waxa shidaal ku baxa Eritrea oo dhanna waxaa bixisa Emirates airportka Haile Asmarana waxay ka dhigtay international airport 1,700 kilomitir bay casab u jirtaa magaalada Asmara marka waxba ugama baahna kaana laami bay ka dhigayaan waxay kala soo degaan magaalada Musawac oo 113 kilomitir oo keliya u jirto laamiya marka way xisaabtamay inagu waxaan ku xisaabtanay ma garanayo istaraatiijiyada magaalada Berbera ee caalamka ugu fadhida ay sheegay shatarka ay Maraykanku diraan space-ka sare loo diro 3 meelood buu dalka Maraykanka fadhiistaa wuxuu fadhiistaa Florida wuxuu fadhiistaa New Mexico wuxuu fadhiistaa California markuu hawadeena soo galo 150,000 oo feet uu dhulka u jiro ayuu ka soo bilaabaa descent-kiisa inuu bilaabo inuu soo dego baddan Indian Ocean-ka halkay ka bilaabato wuxuu soo dulmara magaalada Berbera Berbera waxay u xisaabsan tahay NASA inay noqoto alternate haddii shatarka dhibaata ku dhacday iyo Berberada laakiin inagu maba oginba kolkii hore dowladdii hore Maxamed Siyaad Barre markii Maraykanka la isku xukumay shatarka waxa uu ahayd alternate magaalo ku taala galbeedka India laakiin markii uu ahaa sanadku 1988 ilaa 1991 dowladda Maraykanku waxay bixin jirtay 40 milyan oo dollar ay dowladda Maxamed Siyaad Barre ka siin jirtay si shatarku emergency landing ugu sameeyay hadday wax ku soo baxaan markuu Indian Ocean ka duulay alternate kiisa kale waa Italy waa Spain waa maxay ahayd Senegal iyo dabadna markuu North America gaalo waa xeebaha Canada ilaa Florida ka tegay meesha waa meesha qiimaha inoogu fadhida laakiin inagu waa nidhi bilaash lagu bixin waana si daro annaga inta soo gabagabeynaya salaam